السلام عليكم مالي wanaagsan fiidiyowgan kooban waxaanu ka hadli doonaa ChatGPT iyo waxyaabaha ku cusub maadaama marba marka sii dambaysa tayadiisa iyo waxyaabaha uu qaban karo kor loo sii qaadayo taasoo sahlaysa nolosha bini'aadanka dhanka soo noqotaba haddaba haddii aanad hore u isticmaalin maskaxdan macmalka waxaan fiidiyowgan kula wadaagi doonaa dhowr hab oo aad uga faa'iideysan kartid habka koobaad ee aad uga faa'iideysan kartid ayaa waxay tahay ChatGPT wuxuu leeyahay real time conversation kaasoo aad ula shaqeysanayso sidii qof caadi ah tusaale ahaan haddii aad u baxayso arrimo ganacsi ama arrimo dalxiis ama arrimo waxbarasho dalka dibadiisa ChatGPT wuxuu ku noqon karaa saaxiib wanaagsan kaasoo wax kasta u baahan tahay si easy kugu sheega haddaad Google wax ka raadiso wuxuu ku soo taxaya a lot of website kala duwan waqti badan ka cunaya balse ChatGPT wuxuu waa kooban yahay hadda waxaan isla fiirin doonaa habka uu ChatGPT ka caawinayo waxyaabahan weydiinayo tusaale ahaan waxaan joogaa magaalo aan weligii hore u tagin waxaan weydiin doonaa basaska tareenada hoteelada Soomaalida masaajidada waxyaabaha lamid ah Hi ChatGPT Hi Mahmoud. Can you tell me one of the most popular Somali restaurant in Minneapolis? One of the most popular Somali restaurants in Minneapolis is Karaa Restaurant. Known for its authentic Somali dishes, particularly its rice and goat meals, Karaa originally started in Carmel Mall and has since moved to East Lake Street. Many consider it to serve some of the best Somali food in the city. Another well-known spot is Mama Safia's Kitchen, also located on East Lake Street. It's famous for its traditional Somali meals and cozy, welcoming atmosphere. These are both great places to experience authentic Somali cuisine in Minneapolis. Got it, that's good. How long it takes from Minneapolis airport to the other restaurant? The time it takes to travel from Minneapolis St. Paul International Airport, MSP, to Karaa Restaurant on East Lake Street is approximately 15 to 20 minutes by car, depending on traffic conditions. The distance is about 9 miles. If you're headed to Mama Safia's Kitchen, which is also on East Lake Street, the travel time is roughly the same, around 15 to 20 minutes by car. Both restaurants are close to each other and to the airport. Thank you so much. habkaas iyo habab kale oo ka duwan ayaad uga faa'iideysan kartaa ChatGPT kuna xiran marba baahidaada iyo waxyaabaha aad u baahan tahay habka labaad ee aad uga faa'iideysan kartid ayaa waxay tahay translation sida caadiga waxaanu isticmaalnaa Google Translate kaasoo muddo dheer aynu soo isticmaalinay aadna caan u ah balse Google Translate awoodiisu way kooban tahay waayo hal eray wuxuu bedelaa hal eray just one eray oo English ah waxaad bedelaysaa hal eray oo Soomaali ah balse waxyaabaha cajiibka ChatGPT waxa weeyaan real time translation tusaale ahaan haddii aan ku hadlayo af Faransiis adna aad ku hadlayso af Carabi ChatGPT wuxuu naga caawinayaa inuu labadeena iska fahansiiyo hadda waxaan kula wadaagi doonaa video kooban laba qof oo qofna ku hadlayo English qofna ku hadlayo Faransiis ChatGPT wuxuu ka caawinayaa labada qof isfahmaan wada sheekaystaan waa wax cajiib runtii Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Suena realmente interesante. No puedo decir mucho, pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. I can't say much, but I think the rest of the world will see it soon enough. Oh, well, I can't wait to see what it is as well. hal eray oo Ingiriisi ah waxaad u bedeli kartaa 10 eray oo luqada kala duwan hadda waxaan weydiiyay can you translate in Somali, French, Arabic, Swahili, Hindi, Chinese and Spanish? Hello, how are you? يعني hi how are you baan rabaa inuu u bedelo inta soo luqadood Somali wuxuu ku bilaabay salaam sidee tahay Arabic كيف حالك مرحبا بكم Swahili Hindi Chinese ni hao
ni hao ma, Spanish, hola, como estai, cajiib weeyaan. habka saddexaad ee aad uga faa'iidaysan kartid ChatGPT ayaa waxay tahay inuu kaa caawiyo inuu kula sameeyo qorshe ama balaan. tusaale ahaan haddii aad rabto inaad self-study wax ku barato luuqad farsamo wax walba balse caqabada ku haysta ay tahay inaanad samayn karin habkaad u dejin lahayd muxuu ahaayey course balaankaaga imse cishaad dhiganaysaa maalintii imse saacadood baad baranaysaa wiigka koowaad wiigga labaad maxaad baranaysaa 4 bilood ka bacdi maxay tahay inaad ogaato waxyaaba noocaasa macallin markaad haysato ama qof mentor ku caawiya ayaad ka samayn kartaa achievement aad u wanaagsan balse markaad kaligaa tahay directionka kaalumaya waad isku dul wareegaysaa ka bacdi aakhirka because kama maarmaysid qofku caawiya balse ChatGPT waxaad oran kartaa ChatGPT waxaan rabaa inaan waxa barto muddo waxaan rabaa inaan ku barto 4 bilooda fadlan ii samee course plan markaad ujeedo hadda waxaan u qoray I am a beginner level in English. Can you set a language learning goal for me on a lesson plan? wuxuu ka bilaabay short summary wuxuu halka horeysa kusoo koobay intaas wuxuu guri muddo 3 bilood gudaheed waxaad baran doontaa wada sheekaysiga basic ah waxaad fahmi doontaa su'aalaha oo ka jawaabi doontaa halka wuxuu ka bilaabay weekly lesson plan 12 week baad ku baranaysaa week 1 ilaa week 4 waxaad baranaysaa foundations 10 per day this is very important halka fiirso maalinta waxaad baranaysaa guri 30 ilaa 45 daqiiqo habka afraad ee aad uga faa'iidaysan kartid ayaa waxay tahay inuu ku sameeyo trip plan tusaale ahaan haddii aad safar yaroo dalxiis ugu tagayso wadamada jaarkaaga ah ama Africa ama Europe muddada haystaan ay 5 cisho 4 cisho tahay ChatGPT waxaad oran kartaa muddada haysta waa 5 cisho fadlan ii samee trip plan aynu soo fiirinaa hadda waxaan dhahay waxaan rabaa inaan booqdo Talyaaniga muddo 6 cisho marka waxa fiican aad waxyaabaha xiisaysa u sii yar qeexdo si ugu wanaagsan ku caawiyo waxyaabahan xiisay wax kamid kubadda guryaha qadiimiga ama waxyaabihii cimriga dheer leh sida xeebaha oo kale iyo inaan tago downtown-ka iyo kadib maxay yidhi plan my trip aynu fiirino runtii maskaxda macmalkii waa cajiib mar raba inaan hoos usii galo waxyaabo meesha soo dhigayo balse daywan wuxuu waxaad booqanaysaa Roma iyo guryaha qadiimiga ah guryaha qadiimiga waxaa kamid ah Colosseum and Palatine Hill Colosseum waa one of the most iconic guryaha ugu qadiimisan ee Roma ku yaala almost 700 sano ku yaala Palatine Hill dhismahan baa dhismo aad u caan ah hadaad kubadda daawato marka liiga Syria eeda la xaysiinayo calanka Talyaanigu wave sameynaya fooq uu saa u dhex cararo ayaa la Palatine Hill sawirkiisa hadda soo dhigi doonaa maalinta labaad waxaad booqanaysaa wili Roma Vatican City and downtown maalinta saddexaad Naples beaches ayaad booqanaysaa iyo guryaha qadiimiga maalinta afraad Florence waxyaabaha artiska iyo waxyaabaha cajiib ku tahay maalinta u dambaysa waxaad booqanaysaa Milano football and downtown Milano malaha wuxuu nageenayaa garoonkii kubadda Milano ku yaalay cajiib habka u dambeeya ee aad uga faa'iidaysan kartid ayaa waxay tahay writing skill-ka qoraalku waa waxyaabaha ugu adag markay noqoto luqadaha ama Soomaali ama English ama Carabi ChatGPT waxaad oran kartaa ii qor report ii qor essay ii qor email tusaale ahaan hadda waxaan oran doonaa u qor email kooban managerkayga bari shaqada ma iman karo arrimo family ama arrimo personal awadeed sidoo u qoro aynu isla fiirino and I write short email to my manager tell him I cannot come work tomorrow for personal issue This is very interesting really gabigiisa wuxuu kusoo koobay hal sentence for the professional for the standard waa waxyaabaha cajiibka ah